labada qof waa inay mas'uuliyadda dhexdooda taalla waa inay fahmaan allah maxaa ka weyn ilaahi tabaaraka wa tacaala qur'aankiisa meeqa aayadood buu mas'uuliyadda ragga iyo dumarkaba ku sheegay rasuulu lhudaa calayhi asalaatu wassalaam meeqa axaadiid buu noogu sharxay nabigu sala allahu calayhi waaalih wasalam ninku xaqee buu leeyahay gabadhu xuquuq bay leedahay ninkuna xaq xuquuq buu leeyahay taayib xuquuqdaa waa in la fahmo xuquuqdaa waa inay qalbiga gasho oo in la fahmo maxaa ka macno ah waxaa ka macno ah gabadhu xaqa lagu leeyahay inay bixiso xaqay leedahayna inay dalbato ninku xaqa lagu leeyahay inuu bixiyo xaqa uu xaaska xaqa uu xaas ku leeyahay inuu dalbado taas waa qodob muhiima wey ninka waxaa lagu leeyahay xuquuq aad u weyn waxaa lagu leeyahay marashadii wixii la xidhan lahaa meeshii la degi lahaa maskankii waxaa lagu leeyahay nafaqadii wixii la cuni lahaa o dhan daawadii waxbarashadii dee waad og tihiin alrijaalu qawaamuun ninka mas-uuliyad baa saaran ballan adag buu galay qur-aanku ilahay ku sheegay tabaraka wa tacala gabadha waxaa laga rabaa itaacadii iyo ninka inay ateecdo oy cuntadii iyo gurigii soo waajibaadka o dhan sariirtii waa mawduuc dheer waaye oo aan daqaa'iqa lagu soo koobi karin walidaalika qodobada waxaan u doortay inaan qodob qodob u tilmaamo si aan faa'iido badan u gaadho daqaa'iqan soo socda oona wax badanna oga tegin laakiin qofka caaqilka asagu inuu ziyaadsado oo kororsadaan rabaa maxaan rabaa inaan dhaho fahmu lmas-uuliya labada qof waa inay mas-uuliyadda mid walba mid kale ka saaran waa inuu fahmaa ina dareenku waa muhiime dareenku waa muhiim haddaad orado adu waxaaga soo qaado orod noo soo gad cunto dhex hore nooga soo gad haya biitsa hore nooga soo qabo haya maqaaxida wax nooga soo qabo si gabdho badan maanta ay sameeyaan ayagoo mas-uuliyaddii cuntadaba ka cararaya haddee waad aragteen reero badan baa ku dumay ilaa man raxima rabbulcibaad tabaaraka wa tacaala labada qof ee lamaanaha ah raaxa doonaya inay raaxo ku noolaadaan waa inay mid walba midka kale uu barto waxa uu yahay horta kaale aan isbaranne warqad u dhiib waxaad dhadaa bal waxaad ku soo qortaa waxaad jeceshahay su-aal baan rabaa malaayiinta dhegaysan doonta kelimadan ama dhegaysanaysa su-aal baan rabaa inaan weydiiyo lamaanaha ayaan rabaa inaan su-aal weydiiyo su-aasha inaan iska weydiiyo ma aha iska weydiinhaye jawaab baan rabaa inaan u helno jawaabtaana waa arrin ku xidhan liibaanta iyo sacaadada raaxada daakhiliga ah iyo midka bannaanka u soo bixi doono mustaqbalka weli ma isweydiiseen war maxaad jeceshahay oo maxaad neceb tahay oo maxaa ku dhiba oo maxaad ku faraxdaa oo maxaad ka cadhootaa oo maxaad ku degtaa ii soo qor in alla inta qodob ee aad jeceshahay si aan kuu siiyo inta qodob eed neceb tahay si aan kaaga ilaaliyo bal u fiirsada hal tusaale idinka siinaysaa u fahamtaan labada qof markay intaa isku waafaqaan hadduu ninku u yidhaahdo anigu waxaa iyo waxaasa iga xanaajiya goortaan se xanaaqo waxaan jeclay intaan baxo inaan ragga la soo sheekaysto masaajidada iyo meelaha la iskugu imaadayo maqaaxiyaha intaan asxaabtayda la soo sheekaysto hadhowta waxaad arki doontaa anigoo hadiyo kuu wada yaa shukulaato anigoo kuu wada ubax anigoo kuu wada oo faraxsan baan kuu imaanayaa daawadeydu waa intaa haddaan saa la isku ogaanin ninkii markuu baxo gabadhi waxay leedahay ha anaad iga tegaysaa soomo albaabkay saagaysaa kulleetay ku dhegaysaa imaqashii waan ku furay maya igu dar waan kugu daray 3 maya 9 iga dhig way dhacday ha khatar sooma laakiin ka war hadday dayn lahayd ma dhici lahaa dhibka waa maya gabadhi baa waxay tiraan haddaan cadhoodo waan isduuduubaa qolka jiifkaan galaa bustaan isku dadaa laylama hadlo haye ninka saasaa la doonaya ka war hadduu dhaho maxaa isla duuduubaysaa istaag lama rabo waa in la dejiyo jawiga idan fahmu nafsiyaad waa midda naga maqan 30 sanaa la isqabaa lamana garanayo waxa laga cadhoodo xisaabtii sanadkii koobaad baa xataa aan taalla waagaan jabadaa deganayn waagaan gurigaa deganaa xaafadda howlwadaag waagaan deganayn madiine waagaan deganayn xamarjaja waagaan deganayn boosaaso waagaan u guurnay halkaasaa la leeyahay haddee faraweyna 30 sano ka hor bay ahayde dikruuljafa bacda safa jafa wax la soo dhaafay oo laga soo heshiiyey qofka soo celiya asagaa cudurka iyo daandaansiga wada iyo boogta inuu danqiyo waa in waxaa la xidho baabkaas fahmu nafsiyaad runtii waa qodob in lagu istaaga aad iyo aad u mudan weyn
صادرات بوحالي هذا صدح مرحلة بلا مرة قيس كوناكسن كو التعارف هرتا اسبرنو واحد بسنة سي شيء سي أنكاجا إلاليو قضب كلابان التآلف ولا اسكو سو دوادا ولا اسكو سو دوادا ولا اسكو سو دركا يا ولا اسكو سو دوادا قضب كصدحانا التكاتف قربها بالله يسخف صدا صدح مكاها بالي صدح لا مكادومي التعارف اسبرنو بلا شو ناكسن كدمنا التآلف والتقارب ولا اسكو سو دوانا يا maxaa hadhay التكاتف marka dambe in garbaha la isqabsado labada qof ay isqabsadaan